ninkan odaga ah ee idiin muuqda oo ah 70 sano jir isla markaana aan wax caruura dhalin sidoo kalena xaaskii dunida ka wehesha jiray ee wehelka u ahayd ay ka geeriyootay dhowaan ayaa dhul iyo sidoo kale guri kaga dhisnaa oo dunidan ka lahaa waxa uu u iibiyey si uu usoo cumraysto isla markaana usoo booqdo magaalada barakeysan ee Maka al-Mukarrama. saan ugu dabal muuqaalkan waxaan ka codsanaynaa si meel dheer ugu gaaro inaad like noo saarto si aan share garayso mahadsanid walaal. ninkan odaga ah oo 70 sano jir ah ayaa sidoo uu sheegay aan wax caruura dhalin sidoo kalena xaaskii dunida ee ka wehesha jiray ay dhawaan ka geeriyootay. waxa uu isku dayay isla markaana in muddo ah ku taami jiray sidii mar uu soo xajin lahaa sidoo kalena uu cumro tagi lahaa masaajidka barakeysan ee xaramkana uu booqan lahaa. taasi maadaama uu in muddo ah ku dadaalay kuna taamayay uma suurtagelin maadaama ay haysatay dhaqaale darri aad u baahsan, balse waxa uu sheegay in ugu dambeyntii uu go'aansaday in gurigii kaliya ee dunida uu ku lahaa iyo booskiisiiba uu go'aansaday inuu iska iibiyo lacagta uu taas ka helana uu markaasi ku soo xajiyo sidoo kalena uu ku cumraysi tago. bishaan barakeysan ee Ramadaanka ayuu go'aansaday in uu soo cumraysto sidoo kalena uu booqdo masaajidka xaramka iyo goobaha kale ee barakeysan ee la booqdo xilliga cumrada la aadayo. Naayif al-Rashid oo ah wariye markaasi u dhashay wadanka Kuwait ayaa waxa uu muuqaal kaga soo dhaxduubay masaajidka xaramka halkaasi uu kula kulmay ninka odaga ah ee waayeelka ah sidoo kalena aan wax caruura dhalin xaasna aan lahayn maadaama ay dhawaan ka geeriyootay Allah u raxmadee. waxa uu sheegay in uu Ilaahay ku kalsoon yahay isla markaana uu ka rajaynayo in uu naxariistiisa janno ka waraabiyo dhanka kalena uu markaasi risaaqi doono isaga. waxa uu sheegay in markaasi dhaqaalaha adduunku uusan waxba ahayn balse uu doonayo naxariista Eebbe ee xilliga aakhiro. wariyaha ayaa weydiiyay ilaa dhowr su'aalood oo kooban balse waxa uu inta badan kaga jawaabay ninkan odaga ah ee idiin muuqda in wax walba ay xag Alle ka yihiin xag Allana uu ka heli doono. waxa uu xusay in risaaqad walba ay xilligeeda soo gali doonto iyo xilliga Eebbe uu qoray balse uu yahay hadda isagu mid dhanka dunida faqiirka ah balse aakhiro taasi uu rajaynayo in uu wax weyn ka helo. waxa uu sheegay in hadda aysan jirin wax uu dib ugu noqon doono wadankii uu u dhashay isla markaana hooy iyo wax ugu diyaarsan halkaasi aysan jirin balse Alle uu ka rajaynayo in uu dhankiisa ka heli doono haddii Eebbe u qadaro isla markaana uusan Ilaahay dayici doonin sida uu sheegay. muuqaalkan ayaana aad u qabsaday baraha bulshada ee Carabta inta badan iyo wadamada muslimiinta ah.